baarlamaanka isaga kuma fadhiyo gudoomiyaheena baarlamaan lama soo dooran hada waa gudoomiye dadkii la soo doortay ay soo xambaaray dushka saaray waayotiin deegaanku sharci maaha waan iska fadhna waxay lacag kaaga qaadayaan waxay ku qabtaan 5 sano ha baxeen faysal wuxuu yiraahdaa labada kun ee baarlamaanku qata waa xaaraan 15 sanadood ay fadhiyeen waa xaaraan 25 ku fadhiyeen waa xaaraan 22 kun ee uu qaatana waa xaaraan weeye xusbiyada waxa la siiyay dayr riyaal xuseen jira 1200 oo dollar oo 60 magaalada waaweyn xafiisyada ku yaala kiradooda laga bixin jiray kulmiye intii uu haystay waxa la gaarsiiyay bishii inay qaataan 1,020 oo dollar ee bil walba qaataan caruurtoodu Yurub bay wada joogtaa ama Finland ha joogto ama Yurub kale ha joogtay halkaas ku masruufan lacagtii taa ka qaadan ku masruufan dadku ma oga ma sheegaan lacagtii qaataan marka waxay arkaan baarlamaanku qaatay 2000 xaaraanta bay arkaan ay ku sheegaan xaaraanta ay arkaan tooda ma arkaan muddo dhaafay ku joogaan ma arkaan muddo dhaaf waxa arkaan muxuu ahaayeen waxaan oran lahaa waar in aqal caafimaad qaba la kaalaya haddaad xumaan doonaysaan maalin walba xumaan ku jirtaan dalka waxba ku tarimaysaan caruurtiin Yurub bay wada joogtaan naagiin Yurub bay wada joogaan oo ku masruuftaan halkan waa soo shaqo tagteen la idinka aqbali maayo qaranku idinka aqbali maayo waxaan leenahay war edeb yeesha oo muxuu ahaa xuquuqda leedihiin cid farimayso shuruucda dalka hadda ka talaabsataan ya idinka eersan doontaa hay-ada dhan baa ka dhaqaale badantihiin oo qaranka u jira soomaad garan haddana xumaanta dalku baa ka shaqaystaan qaar baa yidhaahda imika amisom baanu keeni doonaa amisom reerooday u keenayaan hagee ka keenayaan war amisom ma keeni kartaan dadkan dawlad baa loo doortay dawladaasaa loo daba fadhiyaa dawladaasaa shuruucdeeda fulinaysa adeero intaad qaybta ku leedihiin inaad tala soo jeedisaan ku ekeada ayaanu lahaa dhanka kale xildhibaan Cabdiraxmaan Cismaan Calin ayaa waxa uu ka hadlay mas'uuliyiinta madasha wada tashiga oo dacwad ka dhan ka gudbiyay golaha guurtida isagoo arintaasi ka hadlayna waxa hadaladiisii kamid ahaa madashu gol sharciya maaha war waa niman doonaya in intigoodi muuqdo oo la ogaado inay joogaan waa niman waxay dhaafay waqti dhaaf ba ku dhacay waxa weeyaan dadku way israadinayaan dabeeto maxamed xaashi iyo xasan guure iyo cabdiraxmaan cali iyo waa niman israadinaya weeyii khadkii siyaasadda mudayna ka baxeen dabeetana waa niman dib isu raadinayo doonaya public inay isu shaqeynayaan inay wadi joogaan xasan guure iyo ninka cabdiraxmaan cali iyo ninka axmed yuusuf yaasiin waxay ku jiraan hay'adda ayay BOD-gada yihiin muxuu ahaayeen akademiyada ayay shaqaale u yihiin mushahar bay qaataan doorashada qayb ka yihiin waa interest party lacag baa lagu siiyaa inta raadinaya waa inta weeye wax kale maaha maxamed xaashina waa ninka daada ixtiraam buu mudan yahay laakiin waa nin israadinaya doonaya siyaasadda inaanu ka bixin muxuu ahaayeen ka bixin daayiradeeda oo doonaya inuu iska muuqdo xasan ciise aad baan u ixtiraamaa wayna waxyaabo qaarkood la gelinin xasan yaani waxyaabo qaarkood ku gelin nimankaas waa niman shaqaalaha mushahar bay qaataan qaarna waa nimanka israadinaya weeye ha ku dhaxlumin waxaan leeyahay qaranka waynu wada leenahay qaranka haddaynu wada ilaalin weyno oo nin walba dantiisa ka raadsado waxba ka socon maayaan waxa weeye cid baa loo doortay ciddaas waa in loo daba fadhiisto waa in lagu ixtiraamo nin waliba maalintiisa waa inuu sugo in cali waraabe ha sugo maalintiisa la doorto dee 3 goor buu dhacay haddii la dooranayo uu marna afraad soo sharaxayo adeer waqtigiisa ha sugo Cabdiraxmaan Cismaan Calin ayaa waxa uu fariin u diray gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro hadaladiisina waxa kamid ahaa Cirrona waxaan leeyahay aday maslaxadu ku wanaagsan tahay 40% baa dadkan ka heshay nin wanaagsan oo dhaqan wanaagsan baa tahay yarkan Yurub ka soo ursay reerahoodii yaalan halkaasi yaani badku gelin ka digtoono yaani kugu riixin dabka nin dhaqan wanaagsan baa tahay nin maxaa dalkan investment ku laba tahay waad soo halgantay inkastoo halganadii hore aanad waxba ku lahayn intii baarlamaanka jiray halgan baad ku lahayd adeero waxa weeye inamada yar yar ee intay dawladii hore ka shaqaysteen oo lacagta urursadeen oo ay haan waliba u buuxdo
oo ay caruureeroodii Yurub Turkiga iyo meelgu kala geysteen adigu ma inkastoo xagga kala mid tahay yaanay madaxnimaad rabtaa madaxnimadaada ka qasin waxa weeye ficil baa ku jiro cid bay sayaan kale meelo kale u muuqda yaanay daa'irada ku dhaafinin ayaan ugu leeyahay Cabdiraxmaanow dalkan waa la wada leeyahay xaq baad ku leedahay muxuu ahaa niman shaxaatagi iyo niman rag ay meel dad isriyanayaan yaanay dawga ka talaabin Soomaad garan diyaar baa lagu yahay tabashooyinkaaga waa la daweynayaa waxaan ku leenahay muxuu ahaa doorashadana in la qabto inaad raadiga dan ku tahay baarlamaanka in muxuu ahaa idinka jaanis kale baqahan fara badan iska daa yaan habeenkii dhigta wax lagu saarin waxyaabaha jirayaan maalmo khalkhal laga gelinin yaan lagu oran waa layna dhacayaa waa waxyaabaha dalka lagu halaaga weeyay yaan subax walba warqad yar oo la soo qoray lagu dhiibin waxaan ku leenahay inaad wax yeelisa inaad muxuu ahaa cagta inoo dhiga aan kulligiinba aan dalkan maslaxadiisa ka shaqeyno aan si wanaagsan uga talno